وهستا أستانتا قرنكا سوماليد إنكستو أيسا شعبكا سوماليد وذا أوغين عدة عريسي هاستان يا عريي مراها هاستا أستانتا قرنكا سوماليد إي سوماليي توسا waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan cidda curisay heestan waqtiga la curiyay sababta loo curiyay iyo meeshii u horeysay ee laga qaado muddo badan waxaa la isku haystay cidda jirisay heestan dadaal iyo baaritaan dheer oo aan sameynay kadib waxaa noo suuro gashay inaan ogaano cidda iska leh heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed waxaana curiyay miraha heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed Allah u naxariistay marxuum Yuusuf Xaaji Aadam cilmi qabile sida ay cadeeyeen abwana waaweyn oo goobjoog u ahaa waqtigaas iyo kuwa kamid ah gudigii ay dawladda dhexe ee militariga u saartay inay baaraan ciddii iska lahayd heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed waxaa la sameeyay sanadku markuu ahaa 1945 waxaana ay koonfurta Soomaaliya u soo gudubtay sanad kadib markii la curiyay barnaamijkan oo aan gelinay waqti dheer waxaan idinku soo gudbinaynaa cadeymo iyo mas'uuliyiintii goobjooga ahaa waqtigii heestan la tiriyay munaasabadii laga tiriyay iyo cidda tirisay waxaana kamid ahaa mas'uuliyiintii markhaatiga ka ahaa abwaan cali sugulle dun carbeed booba yuusuf ducaale oo ah qoraacaan ka ah dhulka Soomaalida soo noqday wasiirkii warfaafinta ee Somaliland waxaa kaloo kamid ahaa maxamed axmed kamoole oo ahaa xogayihii gudigii ay dawladda dhexe ee Soomaaliya u saartay inay soo cadeeyaan cidda iska leh heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed waxaa kaloo kamid ahaa markhaatiyada imaam بشير إمام صلاد gabagabada barnaamijka waxaan idinku maqashiin doonaa waraysi laga qaaday ee ban xariistii jannaha ka waraabiya ka hor inta uusan dhiman Yuusuf Xaaji Aadan cilmi qabile oo ka hadlaya waqtigii uu tiriyay iyo sababta uu tiriyay heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed abwaan cali sugulle dun carbeed oo kamid ah abwaanada ugu caansan dhulka Soomaalida alifayna heesa badan oo ay kamid tahay afqalada aqoontu miya iyo heesa kale ayaa ka waramaya cidda iska leh heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed lowgeedii markaan qaadnay anoo caruur iyo iskuul waxa yimid la yiraahdo daaqo tima yare oo chief inspector oo ahaa poliskii Yuusuf Xaaji Aadan baadiyay Allah yarhamu wala wada yaqaan daaqo tima yare kii koonfur oo chief inspector marka poliska oo ka sameeyay daawadiisi leeyahay qato ila xayraashay iyo maxamed uu markaa wada leego وعلى الجبهة بيجحد اللي هو الإنجليز كبابين يعني محوجات تشارو محوجات حاجة قاطع لما نبدأ أول ما يروح يحافظ ينقل هاي قاسم يلو اللي وقف هذا ما قاسم ويعد ولا أحسن لكن وانا شاشة لا واللي يواقي تقول كده هنا عملت وشو برينا ما قلت كمان بدل كان اللي تجمعني نحطه هي كل وقت شوية تقول كده هنا عايشة كلمة من قدامك بحبتي ما هو حياة أنا أقول من بيتي وهي عالم بلاني كلام معلم بوها وحنا معلم هاي يوسف حكي هذني وقالوا لي أبزستي السجن يعني إلى عمان محمد شعب المحلة يا عم موسيقى الله يرحم سجال بلاد أيوة على بلاي هذين كي وحنا صادقة أيوة علم من النود كتير أنا ما أشتغل سيدا أولي يستلمون المروة الصومالية توس كتير سنة هالبكين تاجر تاجر أبيكين تلقي هذا عباد توشوا برينا بدل كان نتيجة ما نقول لنا خطوة هذا هو حالتها المدن يقتلنا من كيس إلى لتري وقتل واي البرام كلام عبد الله إنسان وعوي صح هم كان عمل كبحة بيتين إلا غدر رسول الله بقاوي إلا تشي عنا قاعد إلا درجيجي والله يخا كوي بابلو يبي نيويورك والله يخا dhulka way soo yahay in la haydeen oo kiilaayis hadaba ninkii heesta ku mulmayo bal hees kale oo tameysay ama gabaya tameysoo la yaqaan keen baarley waxa isna dhankiisa ka hadlaya booba Yuusuf Ducaale oo ah qoraacaan ka ah dhulka Soomaalida soo noqday wasiirkii warfaafinta ee Somaliland oo marxuum Yuusuf Xaaji Aadam u sheegay inuu leeyahay heesta Soomaaliyeed toosa
ka hor inta aan laga dhigin astaanta qaranka Soomaaliyeed sanadkii 1985 Ramadan Kareem meel joogtaanba shalay baa waxaan dhageysanayay VOA-da iyadoo Axmed Faarax Cali Idaaja barnaamijkii dhaqanka uu kaga hadlayay heesta Soomaaliyeed toosoo dabeedna markaan dhageystay barnaamijkii dhamaaday ayaa wuxuu sheegay inuu heesta iska lahaa Cali Mire heestii midhaheediina uu tiriyay iyadoo laba qaybood ah qayb taalaya oo qaafiyadu taa tahay iyo gabagabadii heesta oo alif leeyahayd ama ay qaafiyadeedu ahayd 1985 ayuu nidaamkii Maxamed Siyaad Barre u qaatay heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed toosoo 85 markaan waxaan ku sugnaa magaalada Dirnabe waxaan ka tirsanaa ururkii gobolnimo doonka ahaa ee SNM laga bilaabo maalintaas ayay heestaasi noqotay wax lagu murmo laakiin tii cid soo hadal qaadi jirtay waqtigaa ka hor ma ay jirin berigaa in yar baan ka qoro waxaan ka qoray jabiyad yar ama wargeys yar oo wareegiisu iska koobnaa oo ururku lahaa ayaan ku qoray waan kaga hadlayay maalin uu Yuusuf Xaaji Aadan iga sheekeeyay heestaasi waxaan jeclay sheekadii inaan idinka dhaco waxay 1976 waxaan joogay oo aan ku sugnaa markaa Yuusufna wada joognay magaalada Muqdisho waxaan u maleynayaa haddaan xusuustaydu degayn inay ahayd bilihii November ama October ee ugu dambeeyay dabayaaqadii 1976 galab bay ahayd salaad casar laga soo baxay waxaan joognay halkii la oran jiray National Theatre-ka gaar ahaan halkii makhaayaddu ahayd baan in yar u jirnay Yuusuf Gaariyaro oo wadan jiray oo otojanta jinkwanta ahaa ama 850 ayuu wadan jiray ayuu ka soo digay galabtaas halkii baan yar fariisanay dabadeedna wuxuu iga sheekeeyay heesta Soomaaliyeed toosoo Yuusuf Xaaji Aadan waxaan ka wada tirsanayn guddi qaban qaabo oo heer qaran ahayd oo diyaarinaysay bandhig la oran jiray bandhigga fanka iyo suugaanta oo loogu diyaar garoobayay bandhigga dhaqanka iyo fanka ee beelaha madow oo ku qabsoomay berigaas dalka Nigeria magaalada Lagos guddidaa waxaanu ku ahayn 5 baanu ahayn heer qaran Yuusuf Xaaji Aadan Cilmi Qabile Xuseen Sheekh Axmed Kadare Maxamed Cali Kaariye Saciid Saalax Axmed iyo aniga 5taas aanu ku ahayn gelin hore tiyaatarkaan joogi jirnay oo probooyinka ciyaaraha heesaha riwaayadaha gabayada suugaanta ayaanu dhageysan jirnay gelinka dambana waxaanu qorsheyn jirnay barnaamijyadii hawl waxay yihiin galabtaas uu iga sheekeeyay uu dhintay Kadare Yuusuf Xaaji Aadan uu dhintay Maxamed Cali Kaariye uu dhintay Saciid Saalax uu nool yahay garan maayo inta nala joogtay wuxuu ii sheegay Yuusuf Xaaji Aadan inuu ku sugnaa dugsiga Sheekh oo markaa macalinka ah Yuusuf Xaaji Aadan wuxuu ii sheegay markuu midhaha dhameeyay iyagoo dalcadda Sheekh maraya inay codka iyo laxankana u sameeyeen codkan lagu qaaday Soomaaliyeed toosoo isku tiirsada Yuusuf sheekadiisa maalintaa wuxuu igu daray dadkii iskuulka la joogay macallimiinta ahaa ama maalintaa la socday ay dalcadda Sheekh marayeen inuu ka mid ahaa ninka la yiraahdo Cali Mire oo isna macallin ahaa ma garanayo inuu nool yahay iyo inuu dhintay hadduu dhintay naxariistii janna Allah siiyo anoo caruuraan hargeysa ku garanaya isagana oo xushmad iyo qadarin bay iga mudan labadaba macallimiin bay ahaayeen oo shaqo shariif ah ayay qaban jireen ama u soo qabteen ummadda iyo ka badanba dabeedna Yuusuf Xaaji Aadan wuxuu ii sheegay maalintaas in markii ugu horreysay heestaa laga qaado meel fagaaro ah ay ahayd xaruntii xisbiga leegada ee magaalada Gaalkacyo oo la oran jiray direksiyoonaha leegada halkaasaa heestaa habeen laga qaaday dabeedna Yuusuf way iska soo noqdeen heestii halkaasay ka tagtay dabeedna waxay tagtay Muqdisho waxaa ku qaadi jiray dad badan oo ka mid ahaa Qaasim Hilowle Faadmo Qaasin aabaheed oo nin dheer oo xoog weyn oo madow ahaa oo cod laxaadle oo aad u luxdan lahaa oo malaa ku fiicnaan lahaa kuwan heesahan operada la yidhaha Yurubta laga qaado malaa si wanaagsan u qaadi lahaa ninkaasaa qaadi jiray waxaan filayaa heestaa in laga dhigay laxankii 2 heesood ilaa 3 heesood oo kale kullay mid haalaya waan garanayaa mid caalayna waan garanayaa oo xamar bariyaha laga qaadi jiray
waxaa fiicnaan lahayd cabdi maxamed amiin inuu noolaan lahaa si uu uga sheekeeyo soomaaliya toosa iyo kuwii kale laga dhegay ee xamar laga qaadi jiray sidaasaan anigu ku maqlay heesta soomaaliya toosoo isku tiirsada oo yuusuf xaaji aadan oo maanta mootan oo aan isdaafici karayn oo aan xuquuqdiisa sheegan karayni uu lahaa oo uu iiga sheekeeyey waxaan maqlay markii ay soo baxday noqotay astaanta qaranka in dad badan sheegteen waxaad yuusuf xaaji aadan mid buu ahaa cali mire mid kaluu ahaa faadmo qaasim baa laii sheegay inay sheegatay oo tiri aabbahay qaasim bilowle ayaa lahaa marka anigu cali mire waxa la yaala waxaan odhanayaa ma jirto xishmad iyo xaqdhowr buu iga mudan yahay laakiin tii sheekada in lagu daro inuu yuusuf xaaji aadanna ka mid ahaa dadkii heesta curinteeda lahaa welibana fawsiya yuusuf xaaji aadanna buuga aabaheed ku qortay way ku dartay welibana waxaan filayaa in heesta yuusuf xaaji aadan ee soomaaliya toosa ay qaafiyadeedu siday u dhan tahay ahayd ta'li marka intaasaan u horwaday inaan ka sheego heestaas waxaan su-aal ku weydiin lahaa markii hore intii aan cidi sheegin 47 iyo 48 muddo dheer baa u dhaxaysay 40 sano ku dhawaad ah markii heestaasi maxamed siyaad barre sheegin heesta qaranka noqonayso maxaa keenay bay kula tahay in intaasoo qof ay sheegtaan waxaa keenay caan markay noqotay waxay noqotay in qof waliba maadaama heestii nin waliba qaado oo meel walba laga qaado oo qof waliba ku luuqeeyo ay hees soomaaliyeed oo baahday noqotay kolka horena ay halgankii gobondoonka astaan u ahayd marka caanbaxa heesta waxaa ku jira caanbaxa magaca ciddii curisay waxaa ku jira magaca caanbaxa qofkii laxanka sameeyey kii muusiga tumay sidaas oo dhan marka maynaan maqli jirin dadkan laakiin tii markan ay astaanta qaran noqotay ay noqotay aroor walba in meel walba iskuullada laga qaado xaflad walba laga qaado marti imanaysa iyo marti goobkaysa loo qaado oo dee xataa maadaama ay astaan qorantay dalalkii dibadduna laba qaran soomaaliyeed oo ku jira qaramada midoobay madaxweyneedu dhoofayey markay heestii halkaa gaadhay nin waliba wuxuu jeclaystay inuu isaguna magaciisa ku lamaanaado way goorma adigu aad maqashay markaad barbar dhigtay inta qof ay sheeganaysa anigu waxaan maqlay markii 85kii la yidhi waa astaan qaran anigoo halgankii hubaysnaa dib u xoreynta qaran ee asal maqsadka ahayd ku jira ayaan toos anu BBC ugama dhageysan laakiin dee markii dambe dadku ay ii sheegeen in faadmo qaasin la wareystay in yuusuf xaaji aadan la wareystay in dad kale BBC wareystay waa la ii sheegay marka awalba laysma wareysan jirin caanbaxan unbaa keenay dabeedna adna ku caanbax way 85kii markaad warbaahinta ka maqlayso ka hor imsa sanaa u dhaxaysay markii yuusuf xaaji aadan kaaga sheekayn doono iyadoo heestuba caan ahayn aniga wuxuu ii sheegay 67 marka macnaheedu waxa weeyaan adiga xilligu ku sheegay xilliga heesta qaran laga dhigay 10 sano u dhaxaysay markaad maqashay dad kale sheeganayaan 10 sano u dhaxaysay heestan markii loo aqoonsaday astaanta qaranka Soomaaliyeed waqtigii dawladii militariga ahayd ee Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxaa loo saaray guddi isugu jira wasiirro iyo aqoon-yahano si ay u soo baaraan ciddii heestan samaysay loona diiwaan geliyo guddigaas waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Kamoole oo ah reer Banaadir ahaana xogayihii guddigaas sida uu cadeynayana heestan waxaa loo aqoonsaday inuu lahaa Allah u naxariistay abwaan Yuusuf Xaaji Aadam Cilmi Qabille warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Maxamed Cali Axmed ku magac dheer Kamoole waxaan ahay qof reer Banaadir ah oo xamar ku dhashay ku koray fac ka faca waxaan rabaa halkan inaan caawa ka cadeeyo sida ay ku timi Soomaaliya tooso sida looga dhigay national anthem-ka Soomaaliya go'aankii dawladii Soomaaliya ee hore ay ka qaadatay oo aniga aan goobjoog ka ahaa waxaan kamid ahaa secretariatkii shirkaas golay dhexe xisbigii xaakimka ah ee Maxamed Siyaad Barre hogaamin jiray 1985kii ayaa kal fadhi aan caadi ahayn ee national anthem-ka kii hore lagu bedelayay loo qaatay Soomaaliya toosoo lagu bedelay ayaa go'aan lagu gaaray inay noqoto astaantii qaranka dood dheer oo muddo 3 casho ah socotay oo xubno badan oo golay dhexe markaas awood lahaa ee dalka hogaaminayay iskugu yimaadeen ayaa waxaa lagu go'aamiyay heesta Soomaaliya tooso inay noqoto national anthem-ka ama astaantii qaranka ee Soomaaliya lagu bedelo tii hore oo la aqoon waayay
meel ay ka timid hase ahaatee dad kooban oo maxamed siyaad bare iyo xuseen kulmiye iyo liiqilqate iyo samatar ka mid yihiin keliya garanayay laga dhaxlay fajistadii marka waxaa loo qaatay soomaaliya toosoo heese badan baa lala tartansiiyey inay tahay mid nuxurkeedu ku fadhiyo halgankii qarannimadii soomaaliya habka nololeedka soomaaliya iyo fikirka soomaaliyeed iyo soomaaliya halkay hiigsan doonto waxyaabo badanaa loo qiimeeyey saas darteed golihii wuxuu isku raacay inuu noqdo heestii soomaaliya tooso aniga maxamed ahaan waxaan ku jiray guddigii sekretarigeedka ee tifaftirayay go-aankaas oo markeeda hore loo saaray guddiyo kala duwan oo markii dambe soo go-aamiyeen in golaha dhexe go-aamiyo heestaas inay noqoto national anthemkii heestaas waxaa kaloo lagu lifaaqay markasta in lays weydiinayona mudneed yaa alifay yaa keenay maskaxdee ka timid waxaa la isku raacay inuu ahaa abwaankii nuxurka heesta miraheedii gundhigu ahaa hadafka soomaaliyeed ee huwaneed alifay wuxuu ahaa allah ya raxma yuusuf xaaji aadan ayaa la isku raacay isagaa loo diiwaan geliyey qofkii ku luqeeyey laxankana saaray ee ugu horreeya codkiisana la maqlo wuxuu ahaa allah ya raxma qaasim hiloole saas darteed halkan waxaan ka caddaynaynaa heestaas kadib iyo geeradii yuusuf xaaji aadan kadib inay soo baxeen dad sheeganaya inay ayagu alifeen hase ahaatee go-aankii dowladda wuxuu u dhacay oo laysku raacay oo la xaqiijiyey inuu ahaa abwaankii hormuudku ahaa arrinnimada soomaaliya astaanteeda inuu ahaa yuusuf xaaji aadan yuusuf xaaji aadan wuxuu magaalada sheekha ku alifay heesta maanta u ah national anthemka soomaaliya soomaaliya tooso kadibna wuxuu usoo wareegtay koonfurta soomaaliya magaalada gaalkacyo dabadeedna waxaa loo soo wareejiyey xaruntii dirisyoonka leegada oo rasmi ama si official ah ee u noqotay heestii halgankii gobonimo doonka heestii qaranka mustaqbalka heestii dadka matalaysay iyo mustaqbalka calanka soomaaliya ee imaan doono taariikhda allahu naxariistay al-ustaas abwaan yuusuf xaaji aadan maahan mid qarsoon ama mid maarta lagu murmi karo wuxuu ahaa haliyey soomaaliyeed ee gobonimo doon ah oo dhaqankii iyo tacliintii soomaaliya taariikh weyn ka galay waxaa kaloo lagu xusaa inuu yahay abwaanada soomaaliya farakutiriska ee heer caalami ah gaaray dhaqdhaqaaq fara badan oo xagga dhaqanka iyo tacliinta ah ayuu soo sameeyey wuxuu hal abuuray heeso badan iyo gabayo badan oo ka tiro badan ilaa 200 oo xusuustooda dad badan ilaa hadda ay hayaan wuxuu ahaa macalinkii labaad ee soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi waxaa ka horeeyey allah ya raxma maxamuud axmed cali wuxuu ka mid noqday raggii bilaabay raadi hargeysa 1940meeyadii sidoo kale wuxuu ahaa nin mar walba dhaqanka iyo sugaanta soomaaliyeed gundhigu ah kii alifa asiga ayaa u sixi jira ama uu la imaan jiray guddigii loo saaray baaritaanka waxaa madax ka ahaa allaha u naxariistay doctor maxamed aadam sheekh bal aan daawana imaam sheekh bashiir imaam salaad oo ka mid ahaa dad uu u sheegay ka hor inta uusan gooriyon doctoorku inuu heystan lahaa allaha u naxariistay abwaan yuusuf xaaji aadam caaway oo ay taariikhdu tahay 5 bishii 1 2019 gurjoog taariikhda soomaalidu waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba inay ogaadaan marka waxaan rabaa inaan uga qayb qaato haddii ilaahay yiraahdo subxaanahu wa tacaala heesta calanka qaranka soomaaliyeed oo ah runtii wadnaha ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan shir kasta oo ay isugu yimaadaan hadday dowlad tahay iyo hadday shacab tahaba in ay tahay furitaanka heesta qaranka soomaaliyeed taasaan waxaan rabaa in taariikhdeeda
inaan wax yar ka sheego oo ah inta soo socota. waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo anigoo joogay shir weyne ay isugu yimaadeen ummadda Soomaaliyeed la isugu keenay Finland sanadku markuu ahaa 2010 shirkaas markii la isugu yimid oo la isugu keenay dadka aqoonta Soomaaliya aqoon-yahanada safka hore uga jira yaa la isugu keenay si xal Soomaaliya looga gaaro arrimaheeda. shirkaasna waxaa qabaqaabiyay UN-ka. sida caadada ah shir kastoo la isku yimaado waxaa shirka lagu furaa heesta Soomaaliya tooso isku tiirsada. heestaasi shirkii markii aan isugu nimid oo shirkii furitaankiisa yaa la qaaday sida caadada Soomaaliya u ahayd. shirkii markuu dhammaaday waxaa shirkii ka istaagay ilaahay ha u naxariistee Dr. Maxamed Aadan Sheekh oo shirka nala joogay. Dr. Aadan Maxamed Sheekh wuxuu ahaa gudoomiyihii guddigii loo saaray in ay xaqiijiyaan cidda heestan curisay. ama sanadkii 1985 laga dhigay astaanta heesta qaranka Soomaaliyeed. wuxuu noo sheegay aniga iyo intii shirka fadhisay in uu heesta tiriyay Allah u naxariistee marxuum Xaaji Yuusuf Xaaji Aadan. wuxuu noo cadeeyay Dr. Maxamed Aadan Sheekh inuu ka xaqiijiyay arintaas ninka la yiraahdo Muuro oo kamid ahaa Allah u naxariistee madaxdii SYL isagoo sheegay in heesta Daa'uud Timayare ka soo qaaday Yuusuf Xaaji Aadan Allah u naxariistee oo joogay Somaliland 1947. nuxurka aan rabay inaan ummadda Soomaaliyeed la qaybso waxay ahayd taariikhda muhiimka iyo astaanta qaranka ruuxii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku beeray hamigiisa in ummadda Soomaaliyeed uu taariikhdeeda gundhigeeda oo wax ka maxaan ku waraa ka saldhigo. sababta aan u sheegay taariikhdaas waxay tahay aan goobjooga u ahaa Ilaahay ha u naxariistay doctorku arinta uu sheegay wuxuu dhintay usbuuc ka bacdi. qaan igu maqan weeyay inaana la dhiman oo aan ummadda Soomaaliyeed u sheego taariikhda aan goobjoog ka ahaa runtii. intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo. waa mahadsantihiin. ugu dambeyntiina aan daawano waraysi laga qaaday intuusan geeriyoon abwaan Yuusuf Xaaji Aadan oo ka hadlaya sababaha ku kalifay inuu tiriyo heestan iyo waqtigii uu tiriyay. heestanu sababta uu ku tiriyay waxay ahayd laga furay Berbera farci SYL. marka qoladii qabanqaabada ku jirtay waa noo keentay invitation annaga ama soo martiqaada waxay yiraahdeen noo ka soo qayb galay xafladaas aan u dhigaynaaye tiibanu aniga aragay kaxaynay 30 arday oo waanu tagnay buurta markaanu maraynay sheekh waanu ka shaqeynayno buurta marayno ayay annagoo maraynay buurta markaanu maraynay baanu soo qaadnay waa Soomaaliyeed hadday meel uga saa uga furayso xisbigii siyaasiga ahaaba halkana aynu ka furay xamarna ay ka furtay Berberana maanta laga furaayo dee Soomaali toostay way gudday awal toostay markii baanu leedahay toostadii oo markaas aanu ka bilowray heesta Soomaaliya toos luqadii waxaas iyo qaadista rafka uma najeedina midhaha tiriskooda ahayd. marka caalamkana wuxuu ahaa nin fanka jecel oo had iyo goor gabayada iyo heesaha inuu jecel dhageysta jecel oo wadani weyn uu ahaa ninkan ku halqabsanaya gabayada aan lahaa caalamka ku halqabsanaya uu ahaa markaan gabay wadani aqrinayna ama aan wadani qabanayna. Soomaaliya toos isku tiirsada hadba kiina taageero abidkiin kuldageeda hoo dhacan baa togasho waleelaanay marulka dhanay tagi baan nin qori u tuuray hadba waxaan la qaaday inta uga qaybshaa inta dalkiisa cadab taabo u tolwaay baan ahay odayaasha kala tagay iyo tafaqaara qaydilaye ingiriis ma taliyeen taleenimo go'dooneen faransiis ma tooxino amxaari ma taseeyeen haddaynan tub wada marin oo taladeenu meel noqon taabi mayno golobnimo oo taagi mayno caalam waan heestu waa inta gabagaba Berbera markii aanu tagnay ardadii deena aanu wadnay baa markaaba qaybtay oo qaaday caalamkana wuu qaybay nin wadani oo ahaa meeshii shirka laga tagaba oo alba isugu yimaadaba wuu ka qaadi jiray
saasoo cali horta heesta ku qaado oo ku qaybay waagii dambe waxa say xamar u tagtay waxay tahay taa anigana tiriyey cali baana qaybay oo ka qaab jiray kolba meeshii xafladahe maanta loo baahdo waagii dambe ayaa farcigii madaxda ahaa ee Israa'iil madaxda ahaa xamar baa warka soo qoray wuxuu yiri waa la imanaya waddanka dawladii baa inoo imanaya waxa la doonayaa Soomaaliya waxay doonaysay ka soo wada qayb gala wixii axsaabaha Soomaaliya marka ani cali miro isna uu masilayo Israa'iil masilayo aniguna aan masilayo SNC waqooyi ayaanu raacay dhiisigii Qur'aan uu tagay waaga lama iskama tagi jiray waxa la qaadan jiray warqad la yiraahdo road bus warqadii baa dhiisigii weydiisanay wuu noo diiday tagi meeshaan buu leeyahay dawladda u shaqaysan oo niman tagay halka ma hidin waanu iskaga tagnay meeshii gaariga aanu karaysan doonay inaan raacno iyo baa iska tagay kulkii dhammaan suuqa ka helay gaari inaan xisbigayga ka mid yahay waro oo dawladdu leedahay kii waanu sheegnay waxaan wargaarigaas naga tagay oo doonay inaan baxsanaano gaarnay maxaa yeelay qaadee waayahay buu rawna qaaday warabayaan ku gaarnay halkaas aanu kaga wareegnay gaarigii ku gaarnay waanu ku raacnay markaanu tagnay gaalka ayaa wadiiba la xigay markaan habeenay maalin ku jiray ayaa gabadh aan ina Muuse Mataan Maryam Muuse Mataan oo kolkaa uu qabo nin aanu ilmaadeernahay oo Baaruud Liibaan la oray Baaruud Ismaaciil la oran jiray ayaa maqashay oo nin baa u tagay hadda dimaashiga oo waana itaqino Hargeysa iman jirtay wuxuu ku xirayay xabsiga oo yaa xalay dawladda oo maxaa lagu haystaa waxba lagu haystay waa la iska xidho aswaalkii bay ku qeybisoo alan baa la soo qaato oo dhalada baxay galay habeenkii xaflad weyn noo dhigeen xafladii baa ka qaaday heesta yaa tiriyay lama oranina ninka tiriyo ninka yani tirinayo baa la maqlaya yaa alifay yaa sameeyay horta heesta magaca yaa lama oranin sidii xamar ku tagtay beedka horeeya ku la tagay ma ay tagin heesta inteeda kale sidaasay ku fushay heesta ku baxday oo nin waliba maanta markii dambe dadku wadaniga ay qaylin jireen oo nin waliba uu sheegtay wuxuu yiri ana tiriyay markii saasay heesta ku tagtay saasay ku fitray anigu ihtimaamba ma ansino heesta markii laga dhigay heesta calanka ee markii dambe ay dadku qaylidi ya iyaman baraarugana waa maxay waxa la sheegaya dadka wax sheeganaya kolka anagu markii aanu kolka heesta saabu qashay ee dawladdu dawladda inay arrintii gasho ee arrintii xafiiska maktab inaan kabinetkii galay majlis wasaaradda galay in national anthem laga dhigo heesta calanka way national anthem laga dhigo markii la doonayay ayaa nin waliba kii uu maqlay keenay وزارة هاي أرتدي ما أنت عارف وزارة المقدار أرتدي برجع كجري إسماعيل أبو كرب كمدها إسماعيل يهرب كجري ما حضرني ولا نجا وين ماشي اللي بتري يوم ماشي عندي تري سبب قبله كاتش أو محيو مكاسل يعني يا تري يوم كاسول إني كاسات الشيء بس حاجة أنا قاتري تيبا اللي مسجري ما قاعدي حاجة دولة دي واحد كواحد هذا كان مو قاعد لكن ما كمان دولة دي بعض ما بدك هذا صوير هذا ما شك شيء أنا يا مكان intii uu waday wareysigiisa Allah u naxariistay Abwaan Yuusuf Xaaji Aadan ayaa la weydiiyay waxa uu uga jeeday beed ka mid ah heesta oo oranaya odayaasha kala tagay tafraaruq ay dilay waxa uu ku jawaabay abwaanku sidan taasi waqti ka yar horeeyay waanu fasaxnahay baa Hargeysa oqaasheedii iyo oqaashii awaare Ingiriisku damaayay wada hadlaan wada heshiisiyaan dagaaladii rabshada la joojo markaas ogaadeen kana waxa ka yimi wafdi uu wato Sultaan Biixi وقولنا واحد كتجي يسوي وفد ووطه السودان علي عبد الله السودان ديري لما دي بقى حد كيكون شيء ولا وكر تجي عندي ولا اسكت جديد وكأولي شكل تجي أن شيء يوقوه يتفرارق أكو كي يوقوه واحد كهذا اللي هيصير لو سرعة نمط لون دمين نمط المال كل الله ولا مرة تيجي اسكت أفكارهم ويانا كل بودين لما دي سلطان تصحيح أرنتا واحد كان بيت كا واحد يعني هو أنا هست علامة دينا kuntiya gabagabadii waxaa cad inuu leeyahay heesta astaanta qaranka Soomaaliyeed Allah u naxariistay Abwaan Yuusuf Xaaji Aadan cilmi qabiil loona diiwaan galiyay sanadku markuu ahaa 1985 اختيار
daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo eDahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida